dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka magaalada Muqdisho ku nool mar kale waxaan maanta idin hor imiday inaan idin dhaho waa mahadsantihiin dadaalkii iyo dulqaadkii aad muujiseen qabsoomidii shirkii golaha wasiirada arrimaha dibadda ee ururka IGAD ee aan caadiga ahayn ee konton iyo saddexaad Soomaaliya sidaad ogtihiin waxay ka mid ahayd dalalkii ugu horeeyay aasaasay maxaan ku yiraahdaa ururka IGAD muddada aad ogeydeen IGAD doorkii ay kula jirtay Soomaaliya amuuraheeda maantana wasiiradeeda arrimaha dibadda dhamaantood inay halkan yimaadaan waxay ahayday arrin weyn oo guul ah oo magaca iyo maqaamka dawladda Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya iyo qaranka Soomaaliya guud ahaantiisba u soo hoyatay ahayd waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee muujiyay dulqaadka maxaan ku yiraahdaa muddadii uu shirkaas u socday oo runtii aad iyo aad u dulqaatay oo maxaan ku yiraahdaa cidhirigii iyo culayskii ka yimid shirka ku dulqaatay oo ku mahadsan yihiin waxaan sidoo kale rabaa inaan bogaadiyo oo aan ayagana hambalyeeyo ciidamada amniga ee Soomaaliya guud ahaantood iyo ciidamada AMISOM oo ayagana arrimaha amniga iyo ammaanka aad iyo aad u qaad cadawgu mar walba waa isku dayay inuu carqaladeeyo inuu khalqal geliyo martideena inuu waxyeeleeyo annaga inuu magaceena ceebeeyo laakiin haddana ciidamadu waa ka hortageen waxaasoo dhan way hor istaageen ma ahayn inuu cadawgu jeclaa in Soomaaliya magac ay yeelato iyo maqaam ay yeelato laakiin waxaa iskale qadarintaas iyo mahaddaas iyo bogaanintaas ay u noqonaysaa waa ciidamadeena qalabka sida madaxweynuhu waxa uu soo hadal qaaday in amniga Soomaaliya ay tahay mid la isku haleyn karo waxa uu intaa ku daray in dhamaadka sanadka ay Muqdisho shir ku yeelan doonaan madaxweynayaasha urur goboleedka IGAD taasi oo tallaabo horumar u ah xagga amniga ay ku tallaabsanayso dawladda federaalka Soomaaliya waana mid u soo hoyatay guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed in ay xaq u leeyihiin caalamka doorka ay leeyihiin inay qaataan oo ay adduunyadu u aragto dal caadi ah si dalal kale oo dhan oo caadiga ah loo arko maanta go'aanada wasiirada arrimaha dibadda IGAD ay gaari doonaan ka soo bixi doona kulminkooda maanta shirkina muxuu ahaay anaguna aan soo jeediyay lana aqbalay waxay ahayday markii ay arkeen Soomaaliya iyo Muqdisho kadib inay ogolaadeen in madaxweynayaasha IGADna ay ku shiraan Muqdisho sanadkan dhexdiisa inta aanu dhamaanin muddada ugu dhaqsiya badan ee suurtagalka ah sida wasiirada arrimaha dibadda u yimaadeen madaxweynayaashuna inay yimaadaan oo ay magaalada Muqdisho ku qabsadaan shirkii IGAD ee caadiga ahay ee madaxda dalalka IGAD madaxdooda ama head of state xushmada iyo sharafta iyo karaamada ummaddu ay soo ceshanayso ee ay u taagan tahay maalin walba waxaan leenahay hala dhowro dalka Soomaaliya madax u leeyahay madaxdooda kulligood waa dad aad iyo aad daacad dalkan ugu ah howlkarnimo iyo dadaal ka muuqdo haddii ay tahay madaxweyne haddii ay tahay prime minister haddii ay tahay guddoon baarlamaan iyo haddii ay tahay xildhibaan iyo wasiiro dhammaan sharafta iyo magaca Soomaaliya wataan nin xildhibaan haddii ay dhibaato gaarto Soomaaliya dhibaato gaarto nin wasiir haddii dhibaato gaarto Soomaaliya dhibaato gaarto madaxda kale ee maxaan ku raadaa qaranka haddii la cambaareeyo shakhsi ma aha la cambaareeyo waa Soomaaliya waxa wax la eedeynayo la cambaareeyo dadkeena mar kale waxaan ka codsanaynaa dulqaad ha la muujiyo fadlan dulqaad ha la muujiyo dalku dhismaya uu hor socdaa waxa maanta Muqdisho ka dhacay kuma inaan keenin xabad kuma keenin madfac kuma keenin maxaan ku raadaa reer hebel dilay ama ku duulay kuma inaan keenin dawladnimo iyo wadajir iyo inaan yaani isku sii dhowno isku soo duumayno oo hor u socon ayaan ku keenay haddana waa ku keeni karnaa intaas waa inta aan mudanahay iyo inaan hor u sii socono oo aan isku nimaado oo aan maxaan ku raadaa tanasul sameeyno dalkan in dictatoriyad lala dagaalamaahay dalkan dawladnimadii burburisay 25 sano ka soo wareegtay macquul ma in dictatoriyad kale ay ka dhisanto macquul ma dhismi karto Soomaaliya dimuqraadi ah oo xukunka si nidaam oo sharci oo qaanuuni ah la isugu wareejinayo la isugu bedelayo xafiisyada loo banaynayo yaan rabnaa inaan sameeyo waxaan u wada taaganahay dadka Soomaaliyeed himiladoodu waa midaas waa u taaganahay nidaam iyo qawaaniin iyo shuruuc iyo ixtiraam la is ixtiraamayo dadka dhan in ay dadka Soomaaliyeed helaan wax u taaganahay mar kale waxaan u hambalyeeynaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan si gaar ah waxaan ugu hambalyeeynaa dadka shacabka magaalada Muqdisho ku nool oo muujiyo dulqaad dheeri ah